السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka nagala socotaan waa bartaan ku leenahay YouTube ee Sameeyo Production 1 ee barashada xisaabinta xisaabaadka ganacsiga software-da loo adeegsado loo yaqaano Smart Accounts. waxaan ku guda jirnay bilowga hore ee QuickBook Online oo casharkeeni labaad soo qaadanay. casharkeena saddexaad aan guda galno. casharkeena saddexaad waxaan ku soo qaadan doonaa inaynu sameeyno waxa loo yaqaan accountada markaasi la dhigto lacagaha ee loo yaqaan bankiga si loo soo create gareeyo. accountadani waa kuwa mar walba muujinaya lacagaha cash-ta ee aad haysato. haddaba saan soo sameeyno waxaan tagi doonaa qaybta laha gear on-ka halkaas oo settings loo yaqaan click siin doonaa. waxay ku taalaa sidan hore soo sheegnay dhinaca midigta xagga sare waana halka kaaga muuqata. click marka siiyo waxa soo furmi doonto daaqadan afarta ciwaan wadatay ugu horeeyo your company lists tools iyo profile. haddaba anagu waxaan adeegsan doonaa qaybta your company ee shirkadeena markaas ka hadlaysa. laba ayaynu dhaafi doonaa ka saddexaad ma waa dhaafi doonaa afraad ayaan tagi doonaa ay ku qorantay chart of accounts meesha xisaabeedka laga soo qaabeeyo. halka markan click siiyo waxay soo bixi doonaa daaqada tan. daaqadani markay halkan timaado chart of accounts-ka qaybta midigta halka ku qoran tahay new ayaan ka sii dooran doonaa. qaybta midigta halka ay ku qoran tahay new account cusub soo sameeyso ama account cusub sameynta ayaan hal mar gujin doonaa. hal mar markan gujiyo waxay soo furmi doontaa daaqad kale oo markaasi magaceedu yahay new account. haddaba account-ka ugu horeeya ee samaysanayno waanu noqdaa account-ka guud ee dhammaan ay hoos tagayaan account-nadeena bankiga. halkaas ayaan ku horeysinaya xornayaa all cash accounts marka saa yiraahdo all cash accounts halka ku qoro all cash accounts ayaa waxaan halkan ka soo dooran doonaa anigu fallaadha afraya qaybta account tab-ka waxaan ka dooran doonaa ku qorti cash and cash ayaan click siin doonaa. cash and cash marka dhaxal markii halkan waxa soo baxaya bank qaybta doormatayna tahay bank way. haddaba halka markuu marayo waxa oranayaa inta halka soo furo ayaanaya ama anigu halka soo furin ayaanaya save gare. hadda waxa save gareysmay account-kii aan soo sameeyay waanaan arka markaas. account-kii aan soo sameeyay waa ka all cash accounts ayaa la yiraahdaa all cash accounts. haddaba account-nadii ku qoray dahabshiil iyo sidoo kale daarasalaam iyo sidoo kale idahab iyo sidoo kale waxa loo yaqaan merchant-ga account-kii cash ahaanka wixiiba waxaan doonayaa inaan halkan keeno oo midmidho oo u hoos keeno marka sub account ayay noqon doonaa. casharkeena kan ku xiga oo noqonaya casharka afraad wuxuu noqon doonaa sidee ayaan u hoos keeni karaa all accounts account-nada aan kor ku soo sheegay ee ka mid yihiin merchant-ka telesom iyo merchant-ka idahab iyo sidoo kale daarasalaamta account-ka daarasalaam iyo account-ka dahabshiil iyo shirkadaha kale ee markaasi bangiyada haddana koona ku leeyahay iyo sidoo kale lacagteeda cash-ta sidee halkan u soo hoos gelin karaa. cashar raxiisa badan ayaa noogu xigi doona balse waa inaad saddexda casharkan iyo labadii ka horeeyay aad soo daawataa si aad ula qabsato casharada muhiimka ah ee taxanaha noqon doona ee ku xiga kan aan imika joogno. halka nagala socotaan waa barteena YouTube Sameeyo Production 1 follow-da iyo sidoo kale subscribe-tu waa muhiim barteena YouTube aan ku leenahay. sidoo kale oo si share garay hal qof waa jeceshahay inuu ka faa'iideysto koorsadan QuickBook Online.